السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ma ka warqabtaa in ay jiraan dad kumanaan lacag ku bixiya si ay kaliya u daawadaan caruur loo geysanayo tacadiye jireedkooda ugu xunxun oo aan kufsiga ka marnayn? mise ogtahay in dad kale ay tobaneeyo kun ku bixiyaan si loo dilo qofka ay rabaan ama si live ah loogu tuso qofka oo la cadaabayo, misna ay iyagu dalban karaan cadaabka qofkaasi la marinayo, halka dadka kalena ay badalbadaan hilibiyada bini'aadamka ama muqaadaraadka kuwooda ugu halista badan. horey ma isku su'aashay maxaa loo afdubtaa caruurta yaryar? halkee ayayse ku dambeeyaan badinkooda? ama halkee lagu iibiyaa xubnaha lagala baxo dadka tahriibayaasha ah? dabcan waxaa laga yaabaa inaad la yaabto hadalkayga, balse waa xaqiiq jirta oo weliba ka dhacda qayb ka mida internetka oo loo yaqaan dark web ama internetka madow. internetka madow ma ahan meel qof weliba uu iska booqan karo, waana baro aad loo adkeeyay security-gooda oo ay adag tahay in la jabsado. xitaa sirdoonada ugu waaweyn ee dunida ayaa awoodi kari waayay in ay ka salgaaraan barahan, balse waa meel ay ka dhacaan falalka kuwooda ugu xunxun uguna arxanka daran ee aad suuraysan karto. waa suuq lagu iibiyo wax weliba oo sharci darro ah: muqaadaraadka, rasaasta, hilibka iyo xubnaha dadka, lacago faalis ah iyo wixii la midka ah. muuqaalkan ayaan kaga hadlaynaa waxa uu yahay dark web ama internetka madow, cidda maalgelisa iyo howlaha ugu xunxun ee halkaasi ka dhaca. magacaygu waa Maxamed Xuseen, ku soo dhawaada xalaqadeena maanta. waa maxay shabakadda madow ama dark web? ka hor inta aan faahfaahin shabakadda madow iyo waxa ay tahay, bal aan isla fahanno qaybaha loo qaybiyo internetka. internetka guud ahaan 3 ayaa loo kala qaadaa. qayb waa surface web, qaybna waa deep web, iyo qaybta saddexaad oo ah dark web. surface webka waa baraha internetka ee sida caadiga ah aan u isticmaalno, sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo wixii la midka ah. waana baraha aad ka raadin karto ama aad ka heli karto Google-ka. sida dabiiciga ahna ay magacyadoodu u dambeeyaan .com, .org, .net iyo ereyada la midka ah. waxaana lagu qiyaasaa in 5% uu ka yahay shabakada guud ee internetka. dabcan waa kaliya 5% internetkan baaxadda weyn ee aad Google-ka ka helayso, halka 95% ee soo hartayna lagu tiriyo in ay tahay deep web. shabakadahan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka internetka. waxay u ogolaanaysaa qofka soo saarista maqaalada iyo faafinta macluumaadka iyadoon la shaacin aqoonsiga iyo meesha uu ku sugan yahay qofkaasi. shabakadaha deep web lagama heli karo Google-ka si kasta oo aad uga raadiso. waxaa laga heli karaa kaliya adeegyo gaar ah sida barnaamijka Tor. qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala shabakadan waxay adeegsadaan nidaamka Tor iyo adeegyo la mid ah, iyagoo markaa loo ogolaanayo xorriyad hadalka, hadal isweydaarsiga, faafinta macluumaadka iyo xuquuqda asturnaanta. dadka ugu caansan ee isticmaalana waa sirdoonada wadamada oo ay ugu horeeyaan Amerika si ay u ilaashtaan sirahooda iyo fariimaha ay rabaan inay dadka kale la wadaagaan. shabakadahan qarsan waxaa ka mid ah qaybta ugu halisan ee gebi ahaanba internetka, dark web. waxaana lagu tiriyaa suuq aad ka helayso wax weliba, waxaana lagu iibiyaa wax weliba oo sharci darro ah: hilibka dadka, muqaadaraadka, rasaasta, lacago faalis ah. waana goob ay ka dhacaan falalka kuwooda ugu xun uguna arxanka daran ee aad suuraysan karto. shabakadda madow waxay ka kooban tahay qolol loo habeeyey in aad ugu tagto hawsha marka aad rabto. tusaale, qolol qaar ayaa u gaar ah daawashada dadka la cadaabayo ama caruur kufsi loo geysanayo. qolol qaar muqaadaraadka iyo wixii la midka ah ayaa lagu iibiyaa. waxaana ka mid ah qolalka ugu caansan Red Room, qolka casaanka ama gaduudka. waa goob ka mid ah shabakadda madow ama dark web, waxayna bixiyaan adeegyo si toos ah looga sii daayo qolalkaasi oo markaasi live ah, sida muuqaalada jirdilka iyo kufsiga. waxaana daawada dad markaa bixiya lacag dhan $3,000 iyo wixii ka badan. si kale haddii loo dhigo, dhibanayaasha loo geysanayo falalka xunxun waa la xirxiraa, deedna marka live-ka uu bilowdo waxay yimaada dadkii cadaabayay. marxalado badan kadib waxay bilaabaan howlgalkii jirdilka, iyagoo u fulinaya sida macaamiishu ay rabaan in dadkan loo cadaabo. mar weliba oo ay sii ziyaado lacagta ay bixiyaan dadkaasi daawanaya, waa mar weliba oo la sii ziyaadiyo arxandarada jirdilka. waxaana laga yaabaa in qofka uu dhinto kadib markii jirkiisa si xun loo jarjaro. waxaana u sii dheer barahan tacadiyada kufsiga ee lagu soo bandhigo haween iyo caruurba. haba ugu badnaadeen dhibanayaasha caruur, halka baaritaano laga sameeyay gudaha Ingiriiska ay soo bandhigeen in 80% falalkan loo geysto caruurta.
baraha ugu caansan ee lagu gudbiyo waxaa ka mid ah Lolita City oo ku dhawaad 14,000 oo qof ay isticmaali jirtay, sidoo kale Playben oo iyaduna 215,000 oo qof ay ka daawan jireen muuqaaladan, ku dhawaad 117,000 oo muuqaalo isugu jira caruur iyo dumar la kufsanayo ayaa halkaasina la soo dhigay. Weapon Sellers, iibiyaasha hubka. Iibinta hubka waxay kaalinta labaad kaga jirtaa qolalka ugu sareeya uguna booqashada badan ee dark web. Halkan ayaa lagu iibiyaa hub noociisa kala duwan, laga soo bilaabo baastooladaha yaryar ilaa qoriyaasha darandooriga u dhaca ee waaweyn. Warbixin lagu daabacay bogga Tech Insider ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa lagu xusay in shabakadahan ay caawiyaan oo ay hubka ka iibiyaan muwaadiniinta degan wadamada aan laga ogoleen in shakhsiyaadka ay hub iibsadaan. Waxa kaloo jira shabakado ka tirsan qolkan oo lala xiriiriyay in ay hub ka iibiyaan argagixisada dunida ka jirta. Waxaana ka mid ah shabakada lagu magacaabo Nucleus oo markii dambe gebi ahaanba la iska xiray maadaama ay ka baqeen in warbixin dheeri ah laga helo. White Wolves, yeeyada cadcad. Yeeyada cadcad waa mid ka mid ah goobaha muranka xiisaha badan ay ka taagan tahay, maadaama shabakadan ay bixiso adeegyo sida kireysashada xirfadayaal dilayaal ah oo dila qofka laga dalbado. Waxaana lagu kireystaa qiimo kala duwan iyadoo loo eegayo muhiimadda iyo heerka qofka la dilayo. qiimuhu wuxuu u dhaxeeyaa 25,000 ilaa 15 milyan oo dollar. Barta ugu caansan ee hawshan lagu fuliyo waxay ahayd Silk Road oo ay FBI-du xirtay sanadii 2013. dabcan ma jiraan wax ku balan qaadi kara in dadkan ay fulin doonaan dilalkaasi oo taa bedelkeed waxay noqon karaan balanqaadyo khiyaano ah, balse sida la soo bandhigay sheekooyin dhex maray dilayaasha ka howlgala Silk Road iyo dad dalbanaya in qof loo dilo, waxaa jiray dad si run ah loo dilay oo xitaa sawiradooda loo diray qofka dalbaday in la soo dilo. Iibiyaasha muqaadaraadka ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan ee shabakadahan ka howlgala. Dadka iibiya muqaadaraadka ayaa halkan u soo raadsada amni maadaama aynan awoodin in sida caadiga ah ay u iibiyaan, baqdin ay ka qabaan sirdoonada dowladaha darteed. halkanse ma lahan meel laga soo tixraaco, lama oga goobta ay joogaan. Waxaa la sheegaa qofka gata in gurigiisa loogu geenayo ayadoon laga warqabin. Ku dhawaad 35 nooc oo muqaadaraad ah ayaa lagu iibiyaa. In ka badan 15% ee dadka iibsada muqaadaraadka ayaa ka soo iibsaday suuqyada madow, iyadoo dad badanna ay ka digeen khatarta arrinkan uu u lahaan doono dhalinyarta maadaama goortii hore laga baqayay sirdoonada. Haddeerse si toos ah ayaa gurigoodii looga geen karaa ayadoon la ogeyn. barta ugu caansan ee adeegan bixisana waa Silk Road. Silk Road ayaa la aasaasay sanadii 2011 waxaana la xiray sanadii 2013. labadaasi sano oo ay shaqeynaysay ayaa waxaa laga helay dakhli dhan 137 bilyan oo faa'iido ah. Inkastoo ninkii aas-aasay uu xiran yahay kadib markii ay FBI-du soo qabatay, qisada boggan Silk Road waa mid dheer. Haddii aan fursad u helo mar ayaan ka soo hadli doonaa hadduu Alle idmo. Ma ahan wax la soo koobi kara waxyaabaha ka dhaca shabakadahan dhexdooda iyo suuqyada ay ka kooban tahay, sida suuqyo lagu iibiyo xubnaha iyo hilibka dadka. qof kastaana dalban kara waana loo keenayaa sida ay balan qaadayaan. Muhiim ma ahan cidda laga soo jaray xubnahaasi. Haddii keli ama wadno ama hilib dadeed aad u baahato way hayaan oo way iibiyaan. Sidaasi ayay balanqaadkoodu yahay, iyadoo arrinkan looga baqay in dadka la iska soo afduubto. Caruurtana ay ugu badan yihiin dadka xubnahooda la iibsado. Sidoo kale dadka tahriiba ee magafayaashu xubnaha kala baxaana ayaa xubnahoodii lagu iibgeeyaa halkan. Su'aasha ugu badan ee maankanaga ka guuxaysa ayaa ah, maxaa loo xiri la'yahay shabakadan? Maxaa loo soo qaban la'yahay dadka falalkan geysta? Ugu horreyn, burcadani waxay isticmaalaan habab aan lagu ogaan karin macluumaadkooda. goobta ay iyagu joogaana lama ogaan karo iyo wax la midka ah. Xitaa haddii la yiraahdo lacagaha loo dirayo ayaa laga dabaraacayaa, lama awoodo oo suuqan waxaa wax lagu kala iibsadaa lacagta loo yaqaan Bitcoin. sidoo kale sababka aan loo xiri karin shabakadaha deep web ayaa ah in dowladaha ugu waaweyn dunida ay isticmaalaan misna macluumaadkooda ku gudbiyaan halkaasi si aynan meel cidlaha isaga oolin fariinta ay rabaan in ay gudbiyaan. Dowladda Mareykanka ayaana ah dowladda bixisa lacagta ugu badan ee lagu maalgeliyo deep web. dabcan waxaa jira dad u isticmaala qaab wanaagsan oo arrimahan iyo wax la mid ah aanan ku jirin, balse waa dhif iyo qaliil. ugu dambeyn, waxaan la hadlayaa qof waliba oo jeclaan doona in uu si ciyaar ah oo tijaabiyo barahani. waan kaaga digayaa arrinkaasi sababtoo ah dhibaatada aad kala kulmi doonto ayaa ka badan faa'iidada aad ka raadinayso. dabcan wax faa'iido oo laga helaya halkaasina ma jiro. waa maxay fikirkaaga ku aadan arrinkan? waxaan jeclaan lahaa inaan komentiyadiina aqriyo, fadlan ila wadaaga. halkan ayaan se kaga baxayaa muuqaalkan. waxaan rajeynayaa inaad ka wada bogateen. waa inoo muuqaalka kan xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano Allah kulanti dambe oo xiiso leh nabadiino.